ciid wanaagsan waan ku salaamay daawada meel walba waa joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah macluumaadka ku saabsan dowladaha Itoobiya kusoo duulay wadada isku xirta Itoobiya iyo Djibouti oo TPLF u gacan gashay wararkii ugu dambeeyay madaxweynayaasha dilalka ka badbaaday intii lagu guda jiray salaada ciida wadahadaladii gaarka ah ee dhexmara madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Azerbaijan macluumaad ku saabsan duqeynta Israa'iil iyo Lubnaan ee isweydaarsadeen iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku eegi doonaa kusoo dhawow mar kale barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maraacadda Show wararka ka dalka Itoobiya ayaa waxay shaaci ka qaadayaan inay sii xoogeysteen dagaalada u dhaxeeya ciidamada TPLF oo u muuqday inay markaan isa soo hubeeyeen iyo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya oo taageero ka helaya maamul goboleedyada kala duwan ee dalkaasi ka dhisan. Dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay waxay shaaci ka qaaday inay jiraan dowlado dhowr oo duulaan ku ah dalka Itoobiya kuwaas oo midnimada diidan isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan dowlad kasta oo ka soo horjeeda nidaamka dalkaasi. Sidaasi waxaa shaaciyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Itoobiya waxaana kadib shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Gondar ee ismaamulka Amxaarada uu shaacu ka qaaday in kooxda TPLF ay taageero ay ka helayso wadamo uu ku tilmaamay inay argagixiso yihiin kuwaas oo doonaya burburka Itoobiya. Taliyaha sirdoonka qaranka Itoobiya ma uusan sheegin dowladaha ku soo duulay dalkiisa laakiin waxa uu sheegay inay jiraan kaalmooyin la siinayo kooxda TPLF oo aanay ahayn sidii markii hore ahaa jirtay sida uu hadalka u dhigay taliyuhu. Wuxuu shaacu ka qaaday qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya oo dhan looga baahan yahay inay la dagaalamaan wuxuu ugu yeeray argagixisada isa soo bahaysatay ee duulaanku ku ah dalkiisa. Kooxda TPLF waxa uu sheegay inay la dagaalamayso dhammaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya waxaana uu sheegay in aanay jirin cid gaar ahaaneed oo ay jeceshahay oo ay dhaafayso taas oo u muuqanaysa inay tahay fariin taliyaha sirdoonka uu dirayo oo ku aadan in dhammaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah TPLF. Dowladaha duulaanka ku ah dalkiisa waxa uu sheegay inay ka hortagi doonaan oo ay iska difaaci doonaan taasi beddelkeedana waxa uu sheegay ciidamada ammaanka inay guulo ay gaareen saacadihii ugu dambeeyay. Wararka aan helayna waxay sheegayaan in ciidanka militariga Itoobiya oo gurmad kala duwan helaya iyo agabka ay ka helayaan dalka Ruushka inay u adeegsanayaan dagaalada ka dhacaya dhanka waqooyi ee dalkaasi Itoobiya. Macluumaadka taliyaha hay'adda sirdoonka ee Itoobiya uu bixiyay ayaa waxay ku soo beegmaysaa saacado kadib markii dowladda Itoobiya ay shaaci ka qaaday in ay diyaar u tahay inay iska difaacdo dowlad kasta iyo koox kasta oo argagixisa oo doonaya inay ka hor yimaadaan nidaamka ka dhisan dalkaas. Dhinaca kale warbaahinta gudaha Cafarta ayaa shaaca ka qaadaysa macluumaadka ku aadan in kooxda TPLF ay gacanta ay ku dhigteen waddo muhiim ah. Waddadaas ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay mid xiriirisa dalalka Djibouti iyo Itoobiya waxaana lagu sheegaa inay tahay halbowlaha nolosha Itoobiya maadaama ganacsiga iyo dhaqaalaha ugu badan uu dalka Djibouti ka yimaado waddadaasina uu soo maro marka la doonayo inuu gudaha Itoobiya soo gaaro ganacsiga kala duwan sababtoo ah dekedaha ku yaala Djibouti ayay Itoobiya kala soo degtaa agabka noocyadiisa kala duwan iyo raashinka quutul daruuriga taasi oo la micno ah in ay tahay halbowlaha nolosha Itoobiya. Warbaahinta gudaha Cafarta ayaana sidaasi baahinaysa. Kooxda TPLF ma jirta sheegashooyin arrintan ay sheegatay oo ku aadan inay gacanta ay ku dhigeen waddada isku xirta Djibouti iyo Itoobiya. Sidoo kale ma jirto dowladda Itoobiya wax war oo ay ka soo saartay arrintan. Macluumaadka soo baxaya dhinaca kale waxay sheegayaan in TPLF ay tiri Cafarta iyo Amxaarada waxaa muhiim ah inay gabi ahaanba hubka iska dhigaan si ay gabi ahaanba u badbaadaan ama ay uga badbaadaan dagaalka ay kula jiraan ciidanka federaalka ee Itoobiya sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxa jabhadda TPLF. Dagaalada Itoobiya markaan waxay u muuqanayaan inay qabiil salkay la galayaan taas oo dagaalo sokeeya ama dhibaatooyin kale oo halis ku noqon doonta Itoobiya. Wararkii ugu dambeeyay ee maanta naga soo gaaraya dalkaasina waxay sheegayaan weli dagaalada inay socdaan mana muuqato saansaan labada dhinac ay ugu yaraan uga tanaasuli karaan dagaalada halkaasi ka socda. Waxyaabaha ka soo kordha xogaheena dambe ayaan ku ogaan doonaa. Fadlan like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada ka dhiiba aragtidaada wanaagsan mahadsanid. Markaana waxaan eegaynaa macluumaadka ku saabsan laba madaxweyne oo isku day dil ka badbaaday intii lagu guda jiray salaadii ciida ee maalintii shalay. Madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalkaasi Mali Assimi Goïta ayaa waxaa lagu waramayaa inuu shalay uu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in loo adeegsado aaladda mindida ama tooreyda intii lagu guda jiray salaadii ciida Carafo masjidka weyn ee magaalada Bamako ee caasimadda dalkaasi sida ay shaacisay madaxtooyada dalkaas. weerarka waxaa fuliyay laba nin oo muddo ku hubaysnaa kuwaasoo la sheegay inay usoo dhaqaaqeen dhanka iyo madaxweynaha agagaarkiisa kadibna waxaa halkaasi gebi ahaanba kala cararay madaxweynaha ciidanka ammaanka
qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Maali ayaa lagu sheegay in la fashiliyay weerarkaasi la doonayo in lagu qaarijiyo Assimi islamarkaana ay ka hortageen laamaha ammaanka iyo ilaalada madaxweynaha. Weerarka waxaa durbadiiba ku awood roonaaday laamaha amniga. Baaritaana ayaa socda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ee la xiriiray weerarka la doonayo in lagu qaarijiyo madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalkaasi Maali. Madaxweyne Goita ayaa waxaa lagu waramayaa inaysan waxyeellaysa soo gaarin islamarkaana uu bad qabo, sida wakaalada wararka Reuters ee baahisay iyadoo soo xiganaysa saraakiil militariga ka tirsan. Qoraal rasmi oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxweynaha ku-meel gaarka uu amni u yahay islamarkaana uu bad qabo iyadoo aysan waxyeello ka soo gaarin weerarkaas. Goite waa 38 sano jir korneyl ka tirsan ciidamada gaarka ah, waxaana xukunka uu la wareegay bishii Juun ee sanadkan kadib markii afgambi labaad uu ka dhacay gudaha dalkaasi uu ku afgambiyey madaxweyne muddo 9 bilood oo kaliya xilka hayay. Dhinaca kalena aan eegna dalka Afghanistan iyo madaxweynaha isagana ka badbaaday madaafiicdii lagu weeraray. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya madaafiic lagu weeraray aqalka madaxtooyada ee dalka Afghanistan ee ku yaala magaalada Kabul intii lagu guda jiray salaada muslimiinta Ciidul Adxa, iyada oo salaadani imaam uu ka ahaa madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. Kadib weerarkaasi ayaa madaxweyne Ashraf Ghani waxa uu sii watay salaadiisii, inkastoo dhawaqa qaraxyo xoogan ay ku dhaceen meel aanan ka fogeyn madaxtooyada, waxaana ay dhaceen 8 subaxnimo xilliga dalkaasi Afghanistan, iyada oo laga maqlay qaraxyadaasi aagga cagaaran ee dadka aadka loo ilaaliyo ay ku sugan yihiin, gaar ahaan halka ay ku yaalaan qasriga iyo dhowr safaaradood oo ay ku jiraan safaaradda howlgalka Mareykanka ee gudaha dalkaasi Afghanistan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Afghanistan ayaa sheegay in gantaalo gaaraya ilaa iyo 3 ay cadowga Afghanistan ay ku weerareen caasimadda Kabul, waxaana uu caddeeyay inaysan jirin wax khasaare oo ay geysteen gantaaladan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xukuumadda Afghanistan. Guud ahaan waddanka Afghanistan waxaa ka socda weerarada xooggan oo ay geysanayaan xogaga Taliban, iyadoo ciidamada shisheeye ay ka bixitaankooda la qorsheeyay in la soo gabagabeeyo 31 bisha Agoosto ee sanadkan. Waddanka Ruushka haddii aan eegnana, madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev iyo madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa kulan ku yeeshay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Wakaalada wararka ee dalkaasi Ruushka ayaa baahisay labada mas'uul in ay kulan ka yeesheen arrimaha la xiriira gobolka Nagorno-Karabakh, waxaana dowladda Ruushka ay uga hambalyeysay dowladda Azerbaijan guulihii ka gaartay dagaaladii gobolkaasi ku dhex maray iyaga iyo Armenia. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka, sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada dalka Ruushka, waxaana kulanka uu ka dambeeyey kadib markii madaxweyne Aliyev uu booqasho 2 maalmood uu ku tagay gudaha dalkaasi Ruushka. Lama sheegin si gaar ahaaneed waxyaabihii ay kaga wada hadleen, waxaana lagu waramayaa kulankooda muddo saacada ah inuu qaatay. Ugu dambeyntii, Lubnaan iyo Israa'iil waxaa lagu waramayaa inay gantaale ay isweydaarsadeen. Ciidanka militariga Israa'iil ayaa lagu waramayaa inay duqeymo leegteen dhanka koonfureed ee dalka Lubnaan kadib markii 2 gantaal la sheegay inay ku dhaceen dhulka Israa'iil, sida lagu sheegay macluumaadka. Warbaahinta Al Jazeera ayaa baahisay ciidamada ammaanka ee Israa'iil inay qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen in hanaankooda difaac uu ka hortagay mid ka mid ah gantaalada, laakiin markii dambe waxaa xigay gantaal kale, inkastoo aan la sheegin waxyeelada ka dhalatay labada dhinac gantaalada isweydaarsadeen. Howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalkaasi Lubnaan ee loo yaqaano UNIFIL ayaa shaaca ka qaaday raadeeradooda sidoo kale inay ka hortageen gantaalo lagu soo weeraray dhanka koonfureed ee dalka Lubnaan, iyadoo aan la ogin sababta ka dambeysa weerarada ka yimid dhanka Israa'iil. Lama garanayo xurguftan waxay salka ku hayso, laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil wasiirkooda ee Benny Gantz ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu shaaca ka qaaday in Lubnaan ay mas'uuliyadda qaadayso, gaar ahaanna weerar xilli habeen ah sida uu sheegay lagu qaaday dhulka Israa'iil, taasi oo Israa'iilna dhankeeda ay ka jawaabtay. falanqayntii siyaasadda arrimaha sirdoonka ee Marcadasho waa naga intaa. Macluumaadkan kan xigeentaan ku kulmi doona nabadgelyo.